ragga waxa xaraarada ku kicin xabadka naaska ah ee xubin weeye barakaysan oo xiise loo qabo oo haddaan laga xafidin waa niyadu inay xumaataay saad u xadgudbaysaani waa nagu xanuun weyne xeerkaan lahayn iyo sharciga ha iska xoorina haddii kale xaqiiqsada inaan xaniyaraanaynin waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da dhegaystayaal inkastoo aan weli si buuxda looga dardugin haddana in badan waxaa laga hadlay kaalintii muuqa dheer iyo maamuuskaba lahayd ee dumarka soomaalidu ay ka soo galeen la dagaalanka gumaystayaashii dalka haysan jiray iyo dadaalkii loo soo galay 1960kii gobonnimadii ay ummaddu taabtay sida weyna ay ugu sacabtuntay si haddaba looga midho dhaliyo wuxuu ahaa halgan qayb bulshada ka mid ahay aanay keligeed libin ka soo hoyin karteen sidaa darteedna u baahnaa cududda iyo maskaxda dadweynaha oo idil halgan soomaalidu inteeda badan ay u wada joogsatay gumaysi raacii tirada yaraa markii laga reebo sidaas awgeedna dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonka ee ay leegadu hoggaanka u haysay awooddii haweenka ku duugnayd kama ay ilduufine eebba waa solansiiyey bilowgiiba waxay ku dhiirigeliyeen in dadaalkii xornimada loogu jiray ay qaybtooda ka qaataan kaalintii ay haweenku bulshaweynta ku lahaayeen ayaa maalintaa kadib wax weyne iska beddeleen ka qaybgalka danaha guud ayuu xisbigu howlahoodii ku soo biiriyey markaas bay waxay noqdeen garab xoog leh oo halgankii raggu u tafaxadinaa aan gelinna looga maarmi jirin waagaas baa ugu dambaysay inay ku ekaadaan hidda ahaan xilalkii loo ogaa sida carruur koriska iyo qabyatiridda shaqooyinkii hoose ee qoysaskooda si walba ayay halgankii uga dhex muuqdeen guddi hoosaad kasta ayay ka mid noqdeen waxaana jirtay golaha dhexe ee xisbiga jeer ay gaareenoo xubin buuxda loogu dhawaaqay ha yeeshee maandad waa mudacyo caaladood waa tii lagu mahmaahaye fikrado kala gedisan ayay dadweynuhu markiiba waxay ka kala qaateen horumarkaa uu dumarku gaaray qaar baa ku farxay oo u arkay guul wadaar ahaan bulshada ugu soo hoyatay qaar kalaasa ka hor yimidoo adduungadoon iyo fasahaad u arkay gabyaal la odhan jiray xirsibaar cabdillah sabiiq oo leegada taageeri jiray ayaa ka mid ahaa kaalintii isbeddeshay ee dumarka odayadii la dhacsanaa tix uu tiriyey qayb ka mid ah waa kii ku odhan jiray dhuudhuumashadu waa raggoo dhabarku muuqdaaye dhaliil ma laha naagaha midii uu xildhibayaaye dhigta dumarku googaraadihii dhaarna wuu maraye dharkii waxay tosheen lagu yiqiin dhiila ruux qaba waa kaa surweelada ku dhacay toban dhalkoodii horumarkaas uu dumarku gaaray kuma ekayn oo keliya xagga siyaasadda iyo ka qaybgalkii halgankee xagga waxbarashadana waa u tallaabsadeen tacliinta casriga oo xataa marar badan wiilasha lagala cararo ayaa waxaa soo baxay odayo liberaal ah oo ku dhiiraday hablihii ay dhaleen inay iskoolada u diraan haddii la rabo ha la xanto haddii la doonana ha la caaye waxay ahaayeen odayo qiimaha waxbarashadu uu ka dhaadhacsanaa oo ogaaday haddii ay waxbarato inaan gabadhu wiilka ka liidan kana waxtar yarayn dabadeedna mar qura ayaa waddooyinkii xamar waxaa lagu arkay hablo yaryaroo abxado ay buugi uga buuxdo garbaha ku sita iyaga iyo wiilashuna ay fasallada dugsiyada si siman ugu xusul duubayaan waxaa soo baxay gabdho xafiisyada dawladda waa berigii ka howlgelaya gabdho ku taxan wargeysadii lagu faafin jiray sheekooyinka sawiran ee jacaylka iyo faashanka ee Rooma iyo Miilaano ka soo bixi jiray hablo mararka qaarkood soo xirta goonooyin jilbaha wax yar ka hooseeya oo timuhu ay u jaran yihiin amaba moodadii ugu dambaysay u shanlaysan hase ahaatee wax walba cusub waatan lagu kala qaybsamee isbeddelkaas dhaqan ee hablihii waxbartay ka muuqday wuxuu sida la garan karo ka caraysiiyey hiddihii hore bulshada inteedii ku dheganayd odayada qaarkood waxayba si caddaan ah leegadii ugu haaraameen inay iyagu dumarka guryihii ka soo saareen sidaa darteedna ay ku wacan yihiin dhaqangadoonka ka muuqda waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray maxamuud ildab oo ku tirsanaa dadkii tirada yaraa ee xisbiga ka soo horjeedi jiray kaasoo arrintaa ka umlay dabadeedna qiray inay leego haweenkii uga adkaatay tix uu tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa hardafkiyo habaasgulufka iyo horisuqaadqaadka hubka laysu doonanahayo iyo soo hayada yeeri sharka leegu hoosimay hayaan lagu heshiinayne hudhudkaasi wuxuu soo wadaa hadiya laystaanay haweenkiyo waxay naga wateen reer dhan habartiis
dhaqankaas ay hablihii waxbartay la soo baxeen dadkii ugu daraa ee ku gansaday waxay ahaayeen dumarkii waaweynaa kuwaasoo aad u qoonsaday dharkooda qaabka socodkooda rag ku dhex jirkooda iyo markay iyagu isu yimaadaan waxyaabihii ay ka sheekaysan jireen oo iyaga la ahaa wax aan qorshe iyo quluutoona lahayn dabadeed cismaan yuusuf oo ahaa gabyaal soomaalida iyo dhaqankeeda aad ugu fiirsada ayaa tiriyey 2 gabayoo qayb ka ah maanta masraxeediisii toddobaadadii ina dhaafay aan qaarkeed halkan idinka maqashiiyey wuxuu 2 gabay ee gaagaaban cismaan inoogu qeexayaa ismaan dhaafkii dumarka soomaalida ka dhex dhashay sanadihii 1950 qarnigii 20aad gabayga hore waxaa ku dacwiyeysa xaliimo oo jiraysa gabdhihii casriga ahaa ee waxbartay markaasna aad u dhex muquurtay siyaasadda noloshii reer magaalka lagu yiqiina aad u macaansaday waxay xaliima tixdeeda kula xifaaltanaysaa baydan oo iyaduna haweenkii hore jiraysa si weyna waxay u liidaysaa noloshoodii reer miyinnimo iyo aqoontoodii ku ekayd farsamaynta dhiiraha xaarimada tabadaha iyo guud ahaan agabka uu qoysku ku adeegto markaas bay tidhi xadnaan bay ahayd baydanay xaaladii hore xabsigii allah nooga turay iyo xijaabkii iyo xornimada sidii loo dhex galay xaal kalaa yimid xurmo ma laha naagaha guryaha ku xayiraadaaye inay xoogsadaan iyo kasbigu ma aha xaaraane xirfo unba uga roon meel inay ku xuturaadaan idinkuba magaalada la xuli kama xishootaane xaggiina arka waa tubantihiin xaafad iyo suuqe xarafkaanu dhiganayna baad naga xasdaysaane haas meel iyo xoobaad tihiin aan xisaab geline xaajadaydun barateeni waa xaalin iyo dhiile xarga aad soo hateen baa tibada ku xirxiraysaane dumar aan xashaasnimo aqoon xiise laga waaye haddii ayan isxaalaynahayn xoolo nimankiiye mana xusuusanahayaan midaan u xarragoonayn xikmadaha adduunka qadde iyo xaashi iyo buug ee xoogaana kama fiirisaan xukunka diineed ee xayawaan sidiisaa tihiin xoolahoo kale qof xirgiilihi waa inuu wixii xaqa u daadhaaye waddankeena la xumaynayo yaan u xarbiyaynaaye xinka idinna wada saahabraan xan iska daynayn xifaaladaas ay xaliiba ku soo halgaaday baydan kama ay aamusina waa ka jawaabtay waxay daafacday da'dii ay ka tirsanayd xaliimo iyo hablihii ay isku garaha ahaayeenna xishood li'ibay hortii horeba ku cambaaraysay tay u dayrisay bay u sheegtay inay madax noqdaan inaysan suuragal ahayn buugta ay sitaan inaanay daacad ka ahayn ay wax kale ugu hoos qarsoon yihiin iyo xajinta dowladnimada in aysan waxba ugu filayn waxay iyadu ku raalli tahay xaasnimadeeda iyo guri ku ekaanshaheeda xaliimo iyo hablihii la da'da ahaana waxay ku xifaalaynaysaa dharka tirada yar ee ay ku labistaan iyo xafiisyada raggu fadhiyo ee goor noolba aan laga agwaayin jawaabteedii waxay baydan ku tiri xilgi midaan lahayn baa tahay xaliimoy xijaab-li'ida kaa muuqataad ka xamdiyaysaaye xornimada waxaad mooddaa waa xil iyo ceebaa leh xaaraani waa inaad ajnebi waxaa ragootaaye xadiiskii iyo qur-aankayna faray inaan xishoonnaaye malaha xaal gadaalkood dhashay yaad xaq u taqaaniine xaashida muraad lagu wato iyo xeeladaha jira ee xikmad dowladeed iyo cilmiga ma xajinaysaane xiskuna ma ogolaan karo inaad xaakin noqotaane xanaanada tan gurigaan u ahay xero islaameede xaasnimo ma diidani haddaad igu xifaalaynne xaalin antosha iga roon niman xafiiskoodi xaraar kuma gashaan iyo colaad ama xadaafiiri xarbi weydinaanba u helayn xoog iyo itaale xirfo aantiin ahayn waa waxaad la xurma beesheene ragga waxa xaraarada ku kicin xabadka naaska ahay xubin weeye barakaysan oo xiise loo qabo oy haddaan laga xafidin waa niyadu inay xumaataaye saaad u xadgudbaysaani waa nagu xanuun weyne xeerkaan lahayn iyo sharciga ha iska xoorina ee haddii kale xaqiiqsada inaan xaniyaraanaynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee aad ka dhegaysanayseen laanta af soomaaliga ee v o edu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid a hadduu eebba idmo mahadsanid axmed farax cali idaaja ayuu kaasi ahaa oo inuu soo jeedinayay hiddaha iyo dhaqanka halka aad weli nagala socotaana waa washington caasha maxaa kaaga baxay barnaamijkaasi laga sheekeynayo dumarkii hore iyo dumarkii dambe ibraahimow waxaan kule ujeedaa inaad si aad iyo aad u dhoolla cadaynayso malaha aad baad ugu bagta barnaamijka